geeska Afrika halka buuraha dhaadheer ay cirka ku dharartamaan turduro nadiif ahna ay ka soo burqadaan waxa ku taala degmo aan wali dunida loo soo bandhigin dadkani wuxuu lahaa jiray sadaqadii ku dhaqantiyo maamul dagaheeyo taana waxa daliil u ah raka dowladnimadiyo ismayaasha duuge darbigani ka soo haray degmada cusub ee Daarimi waxay ka mid tahay degmooyinkii lagu ansixiyay kalfadhigii 9aad ee lagu soo kordhiyay qaab dhismeedka deegaanka Soomaalida dadku marka dibadda laga joogo ee Daarimi la sheegayna waxa la moodaa meel yar oo kooban inay tahay Daarimi meel aad iyo aad u ballaaran weeyaan sida la idin sheegay xadkeedu konsolkii Dirdhab uu gaara ee Jarsageeru gaaraya xagan gobolkii City oo dambal abaan xid la leenahay khayraad ballaaranna way leedahay sida ay tahay xooluhu way ku beeran yihiin oo way ku dhaqan yihiin xiriirkan xuduudeed ee dheer wuxuu Daarimi ka dhigay meel dhaqan ganacsi iyo isku socod bulshada muhiim u ah waa degmo buuraley ah oo kala badha dhulka jooga sare leh iyo dhulka jooga hoose madu waa dhul qaniyo khayraadka dihine dahabku ugu horeeyo duur joogta naadiyo dunyadii xoolaha iyo marka ayuu ilaahay isugu daray degmada Daarimi waxay xambaarsan tahay xusuus taariikheed oo la xiriirta halgankii Axmed Guray geesigii hogaaminayay dagaalkii Cadal ee qarnigii 16aad kaas oo safarkiisa iyo xeeladiisii military uu ka dhacay dhulka buuraha dhaadheer ee ku deedsan degmada Daarimi Axmed Guray wuxuu ahaa hogaamiye muslim iyo Soomaaliyeed oo u taagnaa cadaaladda diinta difaaceeda iyo midnimada dadka daraasadihii taariikhdu waxay tilmaamayeen in buuraha Daarimi ay ka mid ahaayeen meelaha oo ciidanka ku urursan jiray kuna diyaarin jiray weeraro istiraatiiji oo ka dhan ahaa boqortooyada Itoobiya ee xilligaasi dhismahanina waa masaajidka darbiga ee ku yaala degmada Daarimi waa mid ka mid ah dhismayaasha naadirka ah ee taariikhdooda iyo raadkooda uu ku sii yaalo deegaanka Soomaalida waxa la sheegaa inuu dhisan yahay in ka badan 6 qarni isla markaana ay ku cibaadeysan jireen Axmed Guray iyo ciidamadiisii iyo sidoo kale safar ganacsiyeedka ka yimaada Saylac isla markaasina u socda magaalada Harar masaajidkan horta mucjiso Ilaahay buu ku dhisan yahay sababtoo ah hadda guryo badan oo dhagaxa oo markay 100 sano jiraan dumaa jiro oo baaba'san laakiin masaajidkan waxa weeye ma dumayo wax dayactir isagoon lahayn de hadda waad aragtaan siduu yahay masaajidkan waxa lagu tilmaamay inuu Axmed Guray iyo ciidankiisii inay ku tukan jireen maadaama intaas oo qarni uu yahay oo dhagax iyo dhoobo ka dhisan yihiin wax sibidha lahayn waa masaajid si cilmi ahaan uu yaala meesha safarku Saylac buu tagi jiray Saylac markuu ka soo baxana halkan uu ku dhixi jiray halkan markuu ka baxana Harar buu tagi jiray marka meeshan magaalo ahaan jirtay 41 masaajid baa ku yaala hadda masaajidkan baa meesha macnaha hadda lagu tukadaayo oo sidiisiya masaajidkan wuxuu jiraa 800 sano ama 8 qarni marka waa masaajid kulay taariikh ahaan deegaanka wax weyn ugu fadhiyaan malaynaya masaajidkan waxa weeye 4 qol weeyaan qol kamida waa kii lagu tukanayay qol waa lagu khalaawayaa habeenka lagu alla baryaa qol waa kii weysaysiga ee lagu weysaysan jiray qol waa fadhiga inta salaada cishaa'i iyo maghribka inta u dhaxaysa ayaa la fadhiisan jiray 4 qol buu ka kooban yahay guradiisa marka laga soo qaado 9 geed buu ka dhisan yahay geedka gaantirta loo yaqaan waa hal geed oo magaciisa gaantir la yiraahdo buu ka dhisan yahay 9 midna weeyaan 4 daaqadood buu leeyahay iyo 3 tiir buu gudaha ku leeyahay albaabkiisu waa hal geeda umba dhaxda laga jaray wax masaabiirana ma laha dhamaantii wuxuu ka kooban yahay dhoob iyo dhagax iyo geed 3 shay buu ka dhisan yahay waxa kale oo jira raadashii dawladihii iyo maxaan raday nimankii hore ee halgamayaasha ahaa masaajidka halkan ku aasan baa kamid ah waa dhaweyd baan faqnay xabad dhagaxa banaanka taalay oo soo muuqatay masaajidka waa masaajid gabigiisuba aasan yahay buu ahaa waan qodnay waan soo saarnay
markaan taariikhdii dib u wareysanayna waxaana loo sheegay masaajidkan masaajidkii khilwada ahaa ee Axmed Gure sida gaarka ugu cibaadeysanayay buu ahaa masaajidkii weynaa ee magaaladu ay lahaydna waa ka xagga ku yaalo isaguna uu aasan yahay meel kale oo halkan xidhin la yiraahdo iyadana masaajid baa ku dhisan adyaabto oo intuu leeyahay adyaabto xataa barkadii masaajidku uu lahaa sidiiba u sib dhisan tahay ilaa imikadan way burburtay oo jajab iyo waxun baa ku yimiday waxa kale oo jirta meesha hadura la yiraahdo masaajid baa isaguna ku yaala boqolihii raashinka lagu kaydinay cashuurta ee dadka laga soo ururiyo sidiiba u qoran yihiin iyaga oo la sibdhiyay oo afka la yareeyay oo jaranjaradii boosha lagaga dhaadhacayay sidii u samaysan tahay way jiraan oo hadura meesha la yiraahdo boqolaha carabtan u naqaan anagu markaan ciyaalka ahay durdurada biyaha ee Daarimi waa mucjiso dabiici ah waxayna ka soo burqadaan buuraha sare waxayna u socdaan dhinacyo kala duwan oo siiya nolosha deegaanka nafis iyo barwaaqo biyahaas ayaa suurtageliyay in deegaanka degmada Daarimi uu noqdo mid ka badbaaday abaarihii soo noqnoqday ee meelaha kala duwan ee gobolada deegaanka beeraha ayaa noqday il nololeed joogto ah oo taageera qoysas badan oo ku dhaqan qabalayada degmadan tan Daarimi ciidda bacriminta leh iyo biyaha ku filan ayaa ka dhigay meel lagu soo saaro cuntooyinka noocyadeeda kala duwan galeyda masagada digirta iyo miro khudaareedka kala duwan ee basasha baradhada iyo waliba xabuubta qabalahan joognay waxa weeye qabalaha Jafitamaan waxa weeye dhulkan waad aragtaan waxay hodan ku tahay waxa weeye galeyda sida qudaarta kala duwan baradhada basasha waxa weeye kaarooga baytaraafka kaabashka basasha qaysarka waxaan koobi karin sida darteed waad aragtaa abukaandhada saytuunka amba babayga waad aragtaan qudaarta kala duwan buuraleyda Daarimi waxaa ka hooseeya macdan aan si rasmi ah weli loo saamin qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegaya inay jiraan dhagaxaan culus oo u muuqda macdan warshadeed mustaqbalka dhow waxaa suurtagal ah in Daarimi noqoto meel muhiim u ah saaminta iyo maalgashiga macdanta buuraheegan adarkaas waxa kale oo ay leedahay godad waaweyn oo 100 nin maanta haday gasho aanan cidi arkayn oo lagu dhuuman karo oo waxa weeyaan albaabka laga galayaa uu yahay ciriiri laakiin markaad gasho buurta gabigeedu way daloosha dadka aqoon la'aan iyo dhibaatooyin iyo dagaalada ragaadiyay u maahina khayraad ballaaran bay leedahay meesha xoolaha ayaa iyaguna lafdhabarta bulshada ku dhaqan qabalayada kala duwan ee degmada Daarimi buuraha daaqa hodanka ku ah waxay u saamaxeen inay xooluhu noqdaan kuwo caafimaad qaba oo la dhaqo sanadka oo dhan geela looda ariga iyo shinnida malabka dhalisa ayaa u ah bulshada Daarimi dhaqan soo jireen ah oo bulshada u horseeday nolol iyo sharaf wadanka dhulkeena xitaa beeraha wax walba nolosheeda aad iyo aad bay u fiican tahay waana rajayn doonaa inay aad noogu sii korodho imikana aad iyo aad bay noogu fiican tahay waxa lagu kala iibsadaa malabka caanaha subaga iyo malabka ariga inta waa lagu iibsadaa bulshada Daarimi waxay caan ku tahay geesinimo halgan martisoor iyo isku duubni nolol beeraley iyo xoolo dhaqataba waxayna tahay bulsho isku tiirsan oo ku faanta dhaqankeeda iyo jiritaankeeda nololeed taasi ayaana keentay in Daarimi lagu ansixiyo kalfadhiga 9aad ee lagu soo kordhiyay qaar dhismeedka deegaanka Soomaalida kadib marka la arkay dhulka istaraatiijiga ee ku taalo iyo baaxadda santarada iyo qabalayga hoos yimaada iyo waliba tirada badan ee bulshada ku dhaqan dhulweynaha Daarimi dawladii degmada bixisay waan u mahad celinaynaa meeshan waxay u baahan tahay in la maalgashado oo dawladdu gacan weyn u qaado oo ay maal geliso mudnaanteeda way aragtay dawladdu alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan u mahad celinaynaa waqti xaadirkana magaalada Darbiile ee degmada Daarimi waxaa ka soconaya diyaargarow xoogan oo ku aadan munaasabada xafladda loogu dabaaldegayo qaab dhismeedka ay yeelatay degmada Daarimi dadkani wuxuu lahaan jiray sadaqadii ku dhaqantiyo maamul dagaheeyo taana waxa daliil u ah
ركن دولة نمديو اسمعي يا شدوكي دربي غني كسواري dadkani wuxuu lahaa jiray saldanadii ku dhaqantiyo maamul dadaheeyo